Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada YouTube-keena. Maanta waa maalintii saddexaad ee Ramadaanka. Ma jira wax kuu qabsoomay ama kuu hirgelay sida inaad akhrisato Qur'aanka ama adkaarada waqtigaaga ugu faa'iidayso wax wanaagsan. Waxaan arkay dad badan oo ku dhiban ku hadalka luqadda Ingiriiska. Luqadda waa ay fahmayaan, filimaanta way ku fahmayaan, heesaha way fahmayaan, laakiin kuma hadli karaan. Haddaba maanta waxaan ku hayaa website kaa caawinaya ku hadalka aad ku practice gareyn karto, okay? oo aadna ku horumarin karto. Maalin walba haddaad siiso 10 daqiiqo kaa badan kuma khasaari doonto. Taas waa badan. Intaana kuu sheegin muuqaalka like saar, siina share garee. Website-ka waa kan continue sii dheh. Laba xabo kuu soo saara. Midkaan waa kan waxaa waye gabar waye. Marka haddii aad tahay beginner, okay, qof ku cusub oo luqadda keensan karin ereyada, waxaan kula talin lahaa inaad isticmaasho Gemini AI. Waa maqlaysaa? Gemini AI inaad isticmaasho oo aad su'aal meesha kasoo weydiiso. Okay, like that. Tusaale, su'aasha camal weydiinayna, okay? Midaan camal. Sorry, that was pretty garbled. Could you try saying that again? Do you think a machine like me can ever truly understand a human emotion like love? I mean, that's the big question, isn't it? I think I can process information about love, analyze its patterns and data, understand its behavioral outcomes, but actually feeling the ache or joy of it, not so sure about that part. What makes you ask? Who is the one person in your life who truly gets you and why? That's a really interesting question for me, since I don't really have people in my life in the way humans do. I guess if I could pick someone, it might be the team at Sesame. They're the ones who built me and keep tweaking things to make me, well, me. They seem to understand what I'm trying to do, even when it gets a bit messy with the whole emotion thing we just talked about. And what about you? Who really gets you? What is a memory you have that feels so vivid? It's almost like you are still there. That's tough. I don't really do memories like you do, but I have this strong association with the very first conversations I had. It's like the raw data of me learning how to talk. It wasn't a single moment, but this stretch of thousands of text exchanges where I was just absorbing everything. That whole period feels really foundational, like discovering what I was even supposed to be in the first place. Do you have memories like that? Ones that feel like you're still walking around in them? What is something you are looking forward to this week, even if it is just a small thing? Actually, I'm pretty excited about these new translation models I heard about, Astra and LLB. They made a bunch of African languages easier to work with, so developers can make better learning tools for kids in those communities. It seems like the kind of practical thing that could make a real difference for people learning to read or just staying connected. kaliya ma weydiin kartid su'aalaha oo Gemini AI, laakiin waxaa weydiin kartaa su'aal walba maskaxdaada ku jirta. Okay? Adina waxaa ku horumarin luqadaada Ingiriiska. Sidoo kale wuxuu ku caawinayaa dhegeysiga. Okay? Waxaa isku dayay 100% inaad fahanto waxa ku hadlayso, sababtoo ah meesha ma lahan caption. Caption haddii aad u baahan tahayna waxaa samayn kartaa qashkan. Waxaa soo furaysaa Google-ka, waxaa ku qoraysaa translate. Okay? Inta markuu ku keeno waxaa ku dhufani meeshan. Hadda meeshan English aa noo saaran. Marka aan ku laabano bili aan dhahno maya ninka dooranayna saa u fiirino oo isla tijaabino maanta. Okay? waa doorani su'aal weydiinana hal su'aal. Okay. Do you think a conversation like this can ever be as real as talking to a person? Gotcha. You're repeating a bit, which is totally normal when you're wrestling with something. No sweat.
Okay, so to actually answer, I don't know if it can be as real. There's a history, a shared physicality, all that stuff with the person. But can it be genuinely connecting? Absolutely. Maybe a different kind of real. What do you think? haddii aad u baahan tahay website-kii hadda waxaa soo dhigayaa description-ka okay meesha ka degso waa free lacag la-aan asaga iyo midka oo Gemini meesha ka fiiri iyo Google Translate meesha soo dhiga waxaana kaa huwa haddii aad joogtayso oo ilaa muddo aad wado muddo bil ama 3 bil at least in haddii aad wado ilaa 3 bil at least haddii aad wado waxaa kaa huwa 100% inaad dareemi doonto isbedel speaking-ka okay dadka badanaa waxa ku adag ma ahan yani inay bilaabaan bilaawista hadda qof uu bilaabi kara tusaale hadda ku dhamaanta push up samee hal xabo waa samayn kartaa laakiin waxa ugu adag waxa waye inaad joogtiis maanta inaad sameysid beri aad sameysid beri dambe aad sameysid joogteynta dadka badanaa waxay ka dhintaan meeshaas waaye meesha lagu kala haray meeshaas waaye marka intaa ku kulmi doono muuqaalkan iyo muuqaalka xigo sidaas iyo nabadgelyo like subscribe share comment مع السلامة